dadka ganacsatada ah ee business-kan raba inay hirgeliyaan ama coffee shop ay furaan caqabadaha inta badan aan kala kulanno waxaa ka mid ah oo aan u sheegno inaysan ka bilaabin lacagtooda ugu badan aysan gelinin derbiga qarashka ugu faraha badan wuxuu gelinayaa qofka derbigu gelinaya inuu decoration fara badan sameeyo derbi u bari laga yaabo inuu ka tago ama business-kaad arkayso inuu xirmay waxaa lacagta ugu badan ay ku jirtaa lacag aan resale value waxaan u yeelan doonin oo ah derbiga inay lacagta ku jirto oo decoration la geliyay lacagtaada waxay u qaybsamaysay inaad human resource gelisid aad shaqaale tababaran oo fiican oo waqti badan aad gelisay lacagtaada marka hore analysis aad samaysid aad consultants lacagtaada ku bixiso intaad business-ka furin koor inaad horta talo raadsato oo istiraatiijiyada wixii ustaadku maanta dhan noo sharaxay adigoo haysta kadib inaad horta business-kaaga gashay laakiin waxaaba dhacday adigoo intaas gelin lacagtaada ugu badneed waxaad gelisay derbi mashiino quality leh ma aadan gadanin cafe quality leh ma aadan qaadanin qof barista ama waiter professional ah oo shaqadaadii heer ama meel gaarsiin kara ma aadan dooqanin kaliya waxaa xoogga saartay inaad geliso meel qurux badan kaliya la yimaado laakiin service-kii aad gadaysa aadan haynin marka sababta uu u fashilmo iyo dhinacan kale waxaan u deynaa ustaadii laakiin aniga waxaan meeshaan target ka saaro waxay tahay dadka inay lacagaha meel qaldan ay inta badan geliyaan oo ah decoration-ka iyo derbiyada aysan gelinin qalabka iyo dadka iyo productiga